Bismillah, assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada Zainab Qaali Cookings. Waxaan galabta sameysanaynaa xalwad ciid ayaan sameysanaynaa. Ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqo meelaan joognaba caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suuban. Haddana waxaan guda galaynaa xalwadeeni. Soo dhawaada walaalahayga sharafta leh. Daawasho wacan. waxaan weelka ku shubtay koob bakeeriga shaha lagu cabo oo biyo ah labadiisa. kii saddexaad ayaan hadda ku shubay. kiilihii sokorta ayaan ku daray. saas meesha waxaan ku shubay 3 bakeeri oo biyo ah oo bakeeriga shaha ah. bakeerina waxaan ku qasayaa waraangada ama koonfalo hadba saad u garanaysaan asxaabta sharafta leh. waraangadii iyo hadda waxaan isku qasayaa kalar sacfaraan. kalarka isticmaalaya in sacfaraan waaye insha Allah. waxaan ku daray caleenta oo biyo kulul ku dhigay markii hore. caleenta shaha. haddana waxaan ku darayaa waraangada. ku soo noqday taas kaga taga kay hadda badbadi waxaan ku darayaa galaas. waxaan isku daray saliid iyo subag. waxaan ku daray hadda sisin. waxaa kaloon ku daray joos iyo heel aan isku soo shiiday yani carfiskeedii masha Allah. hadda waa inoo diyaar way dhadhowdahay. waxaan kaloon ku daray loos. hadda waa inoo dhadhowdahay. saliidda ayaa iska soo tuftay. saliidda ayaan ka dhurayaa insha Allah. sida ayaan saliidda uga dhurayaa. xalwada markay diyaar masha Allah. hadda waa inoo diyaar. waan soo gadisanay. ujeedaan asxaabta sharafta leh lagama sheekeyn karo quruxdeeda. waa walaashin Zainab Qaali oo idin leh like, subscribe, share, la wadaag asxaabtaada. wixii comment hoos noogu reeba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.